أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. casharkan wuxuu ka bilaabanaa aayadda 46 ee suuratu shuura ka mid ah. yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluh wamaa kaana lahum min awliyaa'a yansuruunahum min duuni illaah waman yudlil illaahu famaa lahu min sabiil. wamaa kaana uma ahaanin lahum daalimiintii min awliyaa'a kuwa arrinkooda tawaliya oo gargaara awliyadoo yansuruunahum ayaga u hiiliya oo u gargaara min duuni illaahi ilaahay ka sokow cadaabkiisa wax uga tara. waman qofkii yudlil illaahu ilaahay uu lumiyo famaa lahu manka uma sugnaanin min sabiilin jid lagu hanuuniyo oo wax lagu tuso uma sugnaanin. xag ilaahi umbaa laga haystaa. aayaddani waxay xiriir la leedahay aayadihii casharkeenii hore ilaahay uga hadlayay subxaanahu wa tacaala nimanka daalimiinta ah. ilaahay wuxuu noo soo sheegay daalimiinta inaysan weli lahayn haddii ilaahay lumiyey ka gadaal, waa gaalada. marka cadaabka ay arkaana waad arkaysaa baa la yidhi nebi allow ayagoo ku calaacalaya hal ilaa maraddin min sabiil. wax laabasho la yidhaah waddo ma leedah, waddo lagu laabto oon isku soo saxno oon isku soo hagaajinno oon dib isugu caqli celinno ma helaynaa? taas waa maya. ilaahay waad arkaysaa buu yidhi marka oo naarta loo soo bandhigo ayagoo hoganaya. waa khushuuca dullin wa inkisaarin wa ihaana wey. khushuucii qiimaha lahaa maa, waa kuwo hoganaya oo qalbi jaban oo indhaha hoos ka xadaya. markaasaa muuminiintu isaga maadaystaan oo waxay yidhaahaan walle maanta waxaa khasaaray kuwa naftooda iyo eheladoodii oo dhan ku khasaaray ee naar keenay. maantana daalimiinta waxay dhexda kaga jiraan cadaab aan dhammaanayn oo joogto ah. aayaddan marka cashirkan uu ka bilaabana aayadahaasay la socotaa. ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana uma ahaanin mana lahan lahum daalimiinta gaalada oo ahlunaarkaa min awliyaa'a ay awliyaa'u mintaasaa dheeraada ama kab ah, kuwa kalgacaltooye ah oo xigaalo ah. awliyadu waa jamcu weliyin. weliga maxaa la yidhaha qofka arrimihiisa maamula oo garab istaaga, ama walaal huu noqdo ama waalid huu noqdo ama saaxiib iyo xigaalo ma leh. ruuxa ahlunaar oo maalinka qiyaamada ilaahan ka magan galnay adduunka waxbaa la istaraa, waxbaa la isxiriiriyaa, waxbaa layskaga laysaga gargaaraa. ayagu male awliye wey. halka muuminiintu ay ayagu awliye leeyihiin. waalmuuminuuna waalmuuminaatu bacduhum awliyaa'u bacdin allahu waliyu aladiina aamanuu ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أولياء ينصرونهم أيغو وهيلية من دون الله إلهي عذاب كيسا كسوكو.
cadaabka ilaahay cid dhihi karta maantay anaa inka difaacaya ma lahan wey. qur'aankani marka inta wakhtiga qofka uu haysto oo adduunka uu joogo ayuu u caqli celinaya. maalinkaasi qiyaamo haddii la tago yacni laa hanti walaa qabiil walaa xigaalo walaa xabiib ma jiro. maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudaac waaka ilaahay uu yidhi wey. yacni yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. waman qofkii yudlil illaahu ilaahay uu lumiyo oo ilaahay uu doono inuu lumo famaa lahu ma sugnaanin ruuxa min sabiilin ay sabiilun wadda lagu hanuuniyo oo uu jidkii hanuunka ku qabsado maba lahanba. aayadahani waxay sabargelin iyo qalbi qaboojin u yihiin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa awooddiisa iyo dadaalkiisa iyo wax alla wixii uu awood lahaa wuxuu isugu geeyey nimanka odayaashii asaga uu u abtirsanayo Quraysh inay soo hanuunaan. wadda ma u helaysidaa laleeyahay. waddo qofka ilaahay uu waddada ka xumeeyo waddo ma lahan. hadday marka sidaa tahay hadduunbaa fursaddu taagan tahee istajiibuu ajiiba dadow lirabbikum rabbigiinna ajiiba min qabli an yaatiya intuusan idin imaanin ka hor yowmun maalinkoo laa maradda celin lahu maalimka uusan u sugnaanin min allaahi min cadaabillaah. maalinka cadaabka ilaahay dib ha laii celiyo oo dib aan isu soo saxo oo fursad ha lay siiyo oo waan soo toobad keeni ma jirto maalimka. yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin. saasay ku calaacalayaan. maalimkaasi celin ma jirtee hadduunbaa jaanisku uu furan yahay fursaddu. maa lakum idinma sugnaanin daalimiinay min malja'in magangal yowma idin maalimka makaanu magangal ma lihidin. maalimkaas ciirsi ma leh. adduunkaunbaa lays ciirsadaa oo la yidhaah war ceelka iga bixi. maalimkaas magangal ma jiro. maa lakum idinma sugnaanin min malja'in magangal yowma idin maalimka. wamaa lakum idinma sugnaanin min nakiirin inkiritaan lidunuubi walmacaasi inkirid yacni dunuubtii iyo macaasidii aad soo samaydeen. adduunku qofka maruu dembiga iska kor yeela oo yidhaah ma gelin oo ma arkin oo ma urin oo ma u tegin laga yaabo inuu ku badbaado indhacdayskaas. laakiin aakhira waxaa kama jiran indhacdayskaas. yacni waxa weeye markuu yidhaah maba yeelinba oo aniga dembi ma gelin asaa laleeyahay alyawma nakhtimu calaa afwaahihim. hawsha maba cuslaba. carabkaa la xiraa carabkaa nagnagle ee dhahaya aniga ilaahayow ma ana caabudi jirin oo oo adiga kuma sharig yeeli jirin. carabkiyaa la dabooli wa tukallimunaa aydii. gacmiyaa shaqo bilaabaya marka. waa yeelay oo waxaasuu ku qabto oo waxaasuu dilay oo waxaasuu sameeyey. lugihii waa hadlayaan waa runtood gacmuu runay sheegeen. yacni waa ka ilaahay aan ku soo marnay suuraddii ka horraysay ay leeyihiin lima shahidtum calayna. war xubnaheenniyow maxaad gacmaheenni iyo lugaheenniyow maxaad noogu markhaati furaysin. waxaan badbaadinaynay oo cadaabkan ilaahay aan ka badbaadinaynay adinka waay. markaasay waxay leeyihiin andaqana allaah alladii andaqa kulla shay. allihii wax walba ka hadashiyaa naga anaymiyaa khiyaar leh. carabka waxaa la yidhi waa xubinta keliya bannaanka aan la keeni karin. inuu meesha ku dhex jira maahane haddaad dhowr daqiiqa bannaanka carabka keento waa qallalaya. wax walba uma dulqaadan karo. qabowguusuu dulqaadan karin. gowskaaga hilkaaga xataa carabka uma dulqaadan karo. haddana waxaa aragtoo daldalmayaa oo hadlayaa wey. xubintan marka jisaa u jilacsan. lugtan weynoo muruqa iyo gacantan iyo garbahan miyuu ilaahay ka hadashiin waayo. marka arrintu sidaa ma aha. ilaahay inkirid ma jirto. fa in acraduu haddii sii jeestaan nebigeennaa la qalbi qaboojin. qur-aanka waxaa laga dhex arkaa ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi maxamed aad u jecel yahay. mar walba wuxuu ka ilaaliyaa murugada. mar walba wuxuu ka ilaaliyaa walwalka. mar walba tiiraanyada. adiga waxaa laleeyahay ku murugoonin hadday ku inkiraan. yacni waxa weeye fa innahum laa yukadibuunak. adiga kuma diidana. adiga kuma beeninayaan. wiilkoodii ataa walaalkooda ataa waa ku jecel yihiin. walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun. ilaahay aayaadkiisii kugu nacayaan. waa saasoo qof walba oo diin iyo khayr iyo ummadda xumaatada ka reebaya diinkaa iska dhaaf ayaa la leeyahay mooyaane waxa weeye waxa lagu haysto qofka iimaankiisa iyo adeegiisa iyo caqiidadiisa weeyaan si kale lagulama dariirin wey. fa in acraduu hadday sii jeestaan fama arsalnaaka kuma annaan dirin nebi allow xafiidan xaalaa taha mid ilaaliya calayhim korkooda ilaaliya. lagu dhihi maayo maxay u dembaabeen maxay u gaaloobeen. yacni laa tuxsii lahum acmaalahum
adiga acmaashooda u ilaalin maysid haddii ay gaaloobaan kan ku qaadaya dembiga uu cadaabaya adiga ma ih xifaadada ilaaha iska leh in calayka maa calayka adiga dushaada ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin ilaahay dadka ducaadda waa u naseexeeyo adiga daaciyaa tahay diinta gudbi qaadashada wamaa calaynaa ila albalaaqu almubiin qaadashada iyo amarka iyo hanuunka ilaaha iska leh adiga waddada u cadday khalaas haddii la qaadan waayo adiga waxa weye waa gudatay dantaadi waa gudatay wa innaa annagu ilaahay idaa waqtigii adaqna aan u dhadhansiino al insaana dadka bini'aadamka ah insaanka hadda waa mufrad laakiin macna ahaan jamaca laga wadaa bini'aadamkoo dhan minna xagganaga raxmatan naxariis haddaan u dhadhansiino naxariista ilahi wax noo sheegay waa dhadhamis sida ilaahay u yaqaanay insaanka caafimaadkaagu waa dhadhamis yani waxaad dhadhaminayso waxaad ka dhargaysa ma ah maanta aad caafimaad qabtaa berri cuduraad la taallaa maanta ayaad maaragtay qani tahay berri faqiiraa tahay maanta ayaad nooshahay berri waa dhimanaysa maanta ayaad dhallinyar tahay berri waad gaboobaysa maanta ayaad faraxsan tahay berri waa murugoonaysaa raxmadda ilaahi waa ku dhadhansiinaya waxaa la ogaanayaa bal inaad ka shukrinaysid inaad ku kibraysid wa innaa annaga ilaahay xidhiidaa waqtigii adaqna aan u dhadhansiino al insaana dadka minna xagganaga raxmata naxariis haddaan u dhadhansiin farixa insaankii lafdigaa la fiiriyey markaa farixuu lama dhih farixa insaankii bihaa raxmaddaas waa ku kibraawe alfaraxu hunaa bimacna albadar waalkibri waalashar santaagga wey farxadda oo maaha ilaahoodaa i siiyey oo nicmadaas ayaan kaa maahna waa faraxa takaburin wa badarin yani wafarixuu laa tafrax in allaaha laa yuxibu alfarixiin waa kale kuwa kibrawe farixa biha wa in tusibhum humtan jamaca ka fahmi insaanka in jamac loola jeeday wa in tusibhum dadka hadday asiibto sayi'atun xaalad fool xun wey abaaraa timi sida haddoo kale ibir qiiq dadkii waxa waaye xoolo dad iyo dunyaba waa baaba'een wey waagii hore oo dadku roonaayeen waxaad dareemaysaa in gadaal loo soo xumaan ayaa dareemaysaa hadda maanta dadka nool annaga waddamo kale kama warhayna laakiin dadka Soomaaliyeed qof walba wuxuu noqday naftiis aduu ma haysataa muufadaada iyo maraqaaga iyo ahaantaada biyumu kugu jiraan khalaas tanoo kale markay dhacda waagii hore culimo is abaabusho ha dhihin madax ha dhihin dad kale oo indheergarada ama maaragtay ganacsataa ha dhihin dadka waxbaa la gaarsiin jiray waxbaa la aruurin jiray hadda maxaa keenay waa limaba la is aaminayo kii kula dhasho hadduu ku yidhaha meeshaasaan gargaar u wadaa raalli ahaw laba luuqad kala baxaad leh cid la aaminayaanba jirinba dadka wax waa dhiibi lahaayeen laakiin hoggaankiyaa xumaaday waa meesha carabtu ay tidhaahdo kayfa yastaqiimu adillu waalcuudu acwaj hoosku haddii laantu qalloocato hoosku suu toosnaaha laanta geedka waa qalloocantaa hoos maa toosnaanaay welida hadda magaaladan nin caqli badan dadku way kala caqli badan yihiin nina waxaan ku idhi nin magaalada dhaqaale xumaa ka jirta inkastoo dadka culimada howlahaas howlahoodaysa ahayn waxaa waaye ninka culimadahu cilmiga akhriya asagu xaalad kastoo isaga jiro ilaahiisu ku qanacsan yaha moogta ninkii uun adduunye ka daba orda ama markii adduunyada la waayo xoogaa stress ku dhaca marka waxaan ku idhi nin suuqan bakaarahan cashir u aadahon muddo wax ku akhrinayo nin waxa la leeyahay waddanku waa shiib ale wax yaalla ma leh lafeento oo hiliba maba le waddanka waxaanuu dabaqyahana suuqa ka socda waxaad arkaysaa guryo fiicnaay oo dabaqyo ahaay oo wax ay qabaan la arka oo dhulka la dhigayo oo la qodayo sida ceel oo dadkii xataa dhisaya uu ku dumayo way ku baaba'ayaan magaalada saas haddaad tiraa waxa qabyo ah marka waxaan ku hirinoo dhibkaas intuu ka jiraa marka hadal xigmad loo igu jawaabo wuxuu yidhi dadka wax lunsadaa wax dhisanaayo yidhi dadka dabaqyada dhisanaa shiiqu u jeedid kuwa keligood oo hantida ummadda oo musuqay ama madax ha ahaadeen ama si kale ha ahaadeen ama dad balaayo dhacda keena ha ahaadeene dadka guryaha dhaadheer dhisanaya waa kuwa musuqa waygana waxaa lagu arko yidhi ayagoo un wada dabaqi cudurku dhacaya keliyuhu fariisteena maaragta gablanya balaayaa isaga dhacaysa wey wixii ummaddu masaakiinta la moogtahay waddankan Soomaaliya dadkiis waxay badnaayeen nolol mutawasida nolol dhexdhexaada oo dadku ay isku dhex nool yihiin ayay ahayd laakiin hadda waxaan noqonnay sidii Hindi oo kale nolol cirkaasa iyo mid dhulkaasa dhexdhexaad ma leh nin indhihii qiiq ka baxaayo oo saaka waa laga helaa deegaankeennan iyo degmadeennana waxaa laga helaa dadaan gurigooda saaka dab laga shiday ayaa laga helaa waa xaqiiqa ah baadiye iskaba dhaaf iyo tuulooyin iskaba dhaaf marka
haddana dadna cirkaasay sii wadaan markaasuu kuu soo sawir calaya magaaladiisay u dhisanta magaaladii aad dhisana intii wax dhacaysa dhisaysa intii wax dhacaysa aad dhisanaysa marka ayagana allaha soo hanuuniyo waa khatar wey ilaahay markuu wuxuu yidhi waa ayaga lafteeda kuwan wax loo waayey waa musiibo ku dhacday maxaa yeele dadkan ayagaa doortay ayagaa u codeeyey ceebta dadka Soomaaliyeed haysta waxaa ka mid ah waxay sameeyeen qolo la yiraahdo lajnatu tashriic waa sharci dejiyaasha baarlamaanka ayay samaysteen waa adduunka baarlamaanka aad arkaysid ilaa adduunka maanta media waa la arkaa baarlamaanka ugu liita way ayaga muslimiin sida islaami kobta inta iskula baxaan oo fiir qalka iska geliyaan oo warqadaha isku jeexjeexaan oo sanka iska jabiyaan oo waxay rabaan media isu mariyaan birimbiga ka yeer عيال بنوني عمله من كاس اللي شرعي ومدو دجية ولنا ننتصنين إليها شرعي دجية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين بينا عشر كأون بوسيس نقدر ما هني أيضا هاس برلمان هذا إشارة يعني لين مفسرين ساس اسكو مقعامين لجنة التشريع والمشرع المشرع والمحلل والمحرم هو الله وحده إلهم بشرعي دجية إلهم بقى وحلله ورقص حلو ليه qodob hobel ay maanta ka doodayaan waxa la ii sheegay qaarkood magacooda inay saxiix aqoon xataa aqoon meeshii ka joogaan wixii la kama yaqaanin wax alla wixii maarata umadu laheedna waa dhaceen oo waxa lagu leeyahay midka ugu yar 5,000 6,000 mushaarkiisu ka kaca marka ilaahay wax ma mooga balaayadaasana la ku saliday wama zalamnaahum walakin kaanu anfusahum yadlimun man aana zaliman sullida alayhi wa nabiga zalim ninki u kaalmeeyay waa lagu salim hayla dadkaas qabiilaa geystay 4.5 lagu geys nin walba qabiilkiisa geeyro kana imatala asagiina booyid biyaasii maayo hal bil haday mushaarkooda ay aruuriyaan umada dhan ay wax ugu qaban karaan marka waxa dareemaysaa mustaqbal xumada wadanka haysata ayaad ka dhex dareemaysaa golahaas noocay rabaan ha ahaadeen ama laawarka ha ahaadeen ama qolada kale yani baarlamaanka kale ha ahaadeen waxba isma dhaamaan ilaa un dad yar ma kii fiicnaana waaba qarsoomaba markaas sidii gabdhii dhowcilada la kala cilaa joog wallahi fiiran kugu dhafaa wallahi bila kawankaaga siya media la isku caaya hadul baarlamaankii Soomaaliya hay gaartay adduunka gaalka ugu nijaasaysan oo taraama inuu soo caayayo waxaan ark mudala dalmiya waxaan madada wax ay leeyihiin malanida nidaamkii xataa baadilka ah uma toosna u leeyahay bal mid ilaahay iska dhaaf كجودب وين تصيبهم هذه أسيبته مصيبة الله وضجلي وين تصيبهم ضدك هذه أسيبته سيئة حالة فلح هذه أسيبته بما يكون أسيبته لله مرنا بإله ظالمة إن الله لا يظلم الناس شيئا إله مظلمي بسبب ما كي السبب كي سعدي يكون أسيبته قدمت أيهور مريان أيديهم قعمهود ذنوب يقلين أي عبارتك أنت ذنوب يقلين أي علاضك أنت ذنوب ضدك قلي أي سعر برك أنت ذنوب يقلين أي أمن حمدك أنت هي فإن الإنسان إنسانه كفور ومد كفرين بدنوي إله دبعتد إيجا قاد مدهاي هدي مارتي بلايا كل عضو وسي جساريا وسي كفرينيا إله آدينيا ومد كفرين بدن إنسان كور إله صون نغمايو كعقل قادم مايو حاصردن كعقل قادم مايو إله ومد كفرين بدنو جساري بدن إله مركو وانهجيا وليسكا إيه مارتا بارها إيه قرش حمدا إيه دقال حمدا هذا وحلي شيء wadanka Hindiya leeyahay 10 sano ka hor waa yareed qof Hindiya waxbarasho aad ama hane dadku caaska caafimaad qabeen hadda waxa lagu leeyahay hadaa tagtid Soomaaliya dhan aad joogto meesha culimo iyo caamo yar iyo weyn rag iyo dumar inta hadda u kooraysay oo u socotana tiraday ka bateen waa wada jireen dadka bajireen walays marka waa la yaabay waxa wadankan ka tagay umaday ka timaado ma jirto dadka Soomaaliyeed marka waxa waaye musiibo iska haysata waxaana la ogaaday dadka iska danta yar oo Ilaahay ku xira dadka ugu caafimaadka badan inay yihiin waa isbitaalada aadin waan jiran Ilaahay dadkiisa ducafada ma mooga ku Ilaahay qarashka siiyay ee ummadda Ilaahay wixii cunana waa kaasaawa wax maaratay cudurro laga sheegay wax balaayo ku dhacday maanta dhan dhakhtarka dab wareegay ay dadkii dhan noqdeen marka qof walba waxa la rabaa in markaan kale waxay mare nin walba madaxaaga meeyrax ku xiro mar haddii feesdanadu iska faaftay kulliba ku soo ciirciiraysaa laakiin adigu bal dadaal nafsadaada hadaa rabto ka dhaxbax fidnade bal naftaada adigu ka celi ummadda muslimiinta
wanaagaaga iyo khayrkaagu ha bateen ilaahaaga magan gal wey ilaahay markuu na soo jihaynaa wuxuu leeyahay lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka cirarka iyo wal ardi dhulka boqortooyadooda allahu akbar haddaad rabto caafimaad ilaaha haysta haddaad rabto caysh wanaagsan ilaaha haysta haddaad carruur rabtid ilaaha haysta haddaad cizi rabtid ilaaha haysta haddaad nolol adduuniya nolol aakhira rabtid wax walba oo mulkiyada xag ilaahay kaa jiraan xagga u soo aadul ilaahay leeyahay markaasaa waxaa la barbar dhigay xagga taranka maxaa yeelay taranku wuxuu ka mid yahay mulkiyadda ugu badan ee insaanku raadiya wey weliba hadda dadka xagga jooga waxay kuu sheegayaan dadka xagga tegey ee Soomaaliyeed anuu dad kale hadda ka war uma haynee waxay u badan yihiin dad xagga taranka kalaga haysta wey oo ama yacni dhali waayey ama cudurro laga sheegay wey ilaa la gaadhay in loo sameeyo alwaladu sanaaci waladu sanaaci waxa waaye in adiga waa bacrismi weydee yacni biyo kale ama dad kaloo ajaaniba biyahooda ayaa lagugu bacriminaa saasaa ku dhalaysaa markaas haddana gaaladii waxay leeyihin hindiyaanku hal cunug iyo 2 iyo 3 intaa ka dhalaysa intaa joogay qarashku waa kugu socdaa daawadu waa kugu socotaa hoteelku waa kugu socdaa markaasaa dadka qaar waxay la soo laabteen ilmo hindiyaankii u eg madaxoodii indhahoodii xubcada ilaan waxaa la sameeyey mukhtalid shahwooyin dad gaala waxbaa lagu bacrimiyey inkastoona aad uga warqabin allahu aclam laakiin saasaa la sheegay oo tayadii ilmaha caadigaaba ma laha liib gurguurad laga sugi maa oo fadhi barad ma leh qof haddii dabayshu tiraa iska dhacdhacaya xushxush waayo inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun marka dadka qaarana weydiiya waxaan idhi arrinkan ma bannaana islaantaada ha lagu daaweeyo adiga ha lagu daaweeyo haddii raba shahwaha lagaa qaado laakiin waxaaga ha ahaadee laakiin haddii gaal shahwiisa lagu shubo cunug indhe buluuga aad la soo timaadid waddankii taasi waa sha'ni kale wey ilaahay wuxuu yakhluqu ilaahay wuu abuuraa ma wixii yashaa uu doonayo ilaahay kaala tashamaayo ilaahay sida adigu aad u abuuraysa iyo saa u rabtid ilaahay ma ah wuxuu rabo ilaahay abuuraa yahabu ilaahay wuu hibeeyaa liman ruux oo yashaa uu doonayo inaasan gabdhu ilaahay u hibeeyaa wayahabu ilaahay wuu hibeeyaa liman ruux oo yashaa uu doonayana addukuura wiilala ilaahay u hibeeyaa aw amase yusawijuhum carruurta ilaahay wuu lamaanaysiiyaa dukraanan wiilal iyo wainaasan gabdho xaala yihiin wayajcalu ilaahay man ruux wuxuu ka yeelaa ruuxoo yashaa uu doonayo caqiiman madhaliis ayuu ilaahay ka yeelaa afartaas insaanku kama gudbaa la yidhi xagga taranka qofkan guursano wixiisa dhabarka igu jiraan oo ilaahay caabuda lama haysto laakiin xagga taranka lamaanaha afarta insaanku kama dhaho inaad gabdho keliya dhashay inaad wiilal keliya dhashay inaad isla wada dhashay inaad eber tahay waa ilaahay mulkiyadiisa iyo ilaahay soo wuxu maamulo fiiri marka ilaahay wuxuu hormariyey gabdhaha yahabu liman yashaa'u inaasan waxay ka tarjumayaan la yidhi yakhluqu maa yashaa'u maxaa yeelay insaanka haddii la yidhaah marka uu guursado wiilal iyo gabdho see adiga lagu yeelaa muxuu leeyahay ani wiilal ha laygu hormariyo taas ma jirto yani ilaahay facaalun limaa yuriid laa limaa turiid adiga waxaa rabta maa gabdhaha lagu hormariyey gabdhaha ilaahay qofku u hubeeyaa soo diidan oo laga yaabo hadduu qof jaahila qof gabar diidaya wuu noo imaan doonaa waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhu muswaddan laakiin haddana waxaa laga yaabaa qofka in uu dhihi lahaa aniga wiilal ha laygu hormariyo amaba wiilash keliya ha laysiiyo yaa zuyina linnaasi muxuu ilaahi yuxibbu shahawaat min annisaa'i walbaniin gabdho laguma darin infiiri maba u qorxanaba isha insaanka wiilashay daydaa markaasaa waxaa la ogaaday gabdho badan inay wiilal badan ka fiican yihiin gabdhuhu ninkii gabdho wax badan oo aan kaga soo sheekaynay ama macnaha ilaahay wuxuu yidhi yahabu liman yashaa'u inaathan wayahabu ilaahay liman yashaa'u dukuur wiilal ow yusawijuhum ama carruurta ilaahay uu xiriiriyaa uu lamaanaysiiyaa kan waa la isugu daraa dukraanan wa inaathan wiilal iyo gabdho xaala yihiin afartaanna waxaa la yidhi inaan qofka lagu qiimaynaynin ilaahay uu ku xiran yahay gabdhaa ilaahay ku siiyin ilaahay ku nacama wiilala ilaahay ku siiyin ilaahay ku jecel yaha maa waa laysuu kaa daray inaad adigu ka wada fiican taha maa shib aa lagaa dhigay waxmaba dhiiqinba ilaahay inuu ku nacay maa maxaa yeelay ambiyada weliba rususha ayaa sidaan ahaa la yidhi yahabu liman yashaa'u inaathan ciduu doono ilaahay oo u hibeeyaa maxaa kal ambiyaa'i warusul sida gabdhayaa dhalay ka luudin wa shucayb nabiyullaahi luud haaulaa'i banaatii kunna adharu lak shucayb wawajada min duunihim imra'atayni taduudaan laba gabdhoodaa u shubi jira nabiyullahi shucayb asoo waayeel waatii gabar nabiga ilaahay oo nabiyullaahi muusa uu ka guursaday wey innii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an ta'juranii la yidhi nabiy ilaah rasuulawa wayahabu liman yashaa'u dukuura ka ibraahiim
nabiyullaahi ibraahim wax gabara maba dhalinba, nebi isxaaq uu dhalay, nebi ismaaciil uu dhalay, khalaas maba dhalinba, yacni gabdho ma dhalin. oo amase yusawijhum ilaahay wuu lamaanaysiiyaa, wuu isugu xiriiriyaa, waayahay carruurta dukraanan wa inaathan waa man yashaau, ciddii ilaahay uu doono, ka sayidina wa xabiibina maxamed sala allahu calayh wasalam. awlaaduhu yacni sabca, qaasim wa cabdullaahi iyo ibraahim iyo ruqayatun wa faadimatun wa ummu kulthum wa zaynaba, wiilalihii gabdhaba nebigeena waa dhalay. haddana saasay tahay nebigeena wax wiilala uma tarmin, wax ahlubeyd aa maqliye oo aa maqlaysa asharaaf gabdho waayo, laakiin soomaalidu gabdhaha kugu soo abtirsan amaba aaminsanaba. wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam ibnu ukhtilqawmi minhum, war gabadhaadu ilmahii dhasha adigay kaa tirsan yihiin. wuxuu ku leeyahay kan gabaraa keento, gabadha hadday keento adoo abtiriskaaga ku jira maxaa u diidaysa? may waa weel wax lagu shubto kule, weel wax lagu shubtayo dhaqan xumadana haysatay ka mid. yaa laakiin dadka akhyaartaahu fiican, wiilashooda abtiyaashii ku yihiin waa ku faaraan, ayaguu ka tirsan yahay. waa ilaahaba dhahayaba iyo rasuulkiisa. macnaha ansaarta markuu nebiga waaninayay ayuu xoogaa ayagoo inta wax la qaybiyey xoogaa yara sheegteen. marka nebigu wuxuu yidhi adinka cid aan ahayn fadhigaas sii ka soo qaybgelin, marna aan ballanno. markii nebigu yimid oo iska hubiyey wuxuu yidhi ansaaray ama laydinku dhex jiraa dad inka baxsan oo muhaajiriina? mayay dhaheen wiilaa nala jooga oo yacni waxa waaye gabadheen u dhasha laakiin muhaajiriye, ma bixinaa bannaanka ma u bixina. ibnu ukhtilqawmi minhum uu yidhi, yacni qoomka gabadhooda wiilkay dhasha ayaguu ka tirsan yahay. minhum waba ka mid uu yidhi, kufan gabadhaadu ilmahay kuu dhashay kaba fiicanba, waa la arkay ilmaha awowha u tahay, kaba qiimo badan, kaba naxariis iyo jileec badan. hadhihin ree hebel waa ree hebel ha ku abtirsato oo qabiilkaas iska ahaato, laakiin haddana waa dhaliyo abti waaba ka sii bacan yahaba. abtiga iyo adeerka waa la ogyahayo abtiga aad u sii ilmo jecel. ilaahay marka saasuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, labadiiba ilmaha waa laysugu daray. wayajcalu ilaahay wuu yeelaa man ruuxoo yashaau ilaahay uu doono. waxa dhan waxaa lagu xiray yashaau, mashii'ada ilaah waa sida ilaahay adig kuu rabo, sida ilaahay kaa dhigo waa inaad jeclaato. nin sheekhaha carruurtii dhan ka wada baaba'een, markaasaa layidhi ilaahay ka waran maxaa ka niyeysanta? markaasuu yidhi alkhayru huwa makhtaarahu allaahu lii, khayr aniga waxa ii ah wixii ilaahay ii dooro. hadduu idharjiyo iyo hadduu igaajeeyo, hadduu dad isiiyo, hadduu se isiin, hadduu dunyo isiiyo, haddaan waayo wixii ilaahay iga dhiga ay khayr ah wey. ka waran xigmadda ilaahay haddii 5 cunug oo sun ah lagu siiyo oo caasiyaalahoo mid walba budka inta halkaa kaaga dhufto ilkaha kaa jebiyo, waa la arkay. soosaankuuma maslaxa roona, waxa maslaxadaada iyo waxa khayr kuugu jiro adiga ilaaha og, laakiin ilaahay weydiiso. ya'si lama rabo si kasto. maxaa yeele nabiyullaahi ibraahim markuu ilaahay baryaayey uu dhahaya yacni ilaahay ou awlaadisii 120 sano uu jiray, awlaada u bilaabato. nabiyullaahi zakariya muxuu yidhi rabbi laa tadar lii fardan wa anta khayru lwaarihiin, waa yeeloo ahaa. si kastoo tahay ilaahay wuxuu ku siin karaa subxaanahu wa tacaala. innahu alla caliimun wayajcalu man yashaau caqiiman, yaa waaye ka yaxyaa iyo wa ciisa. nabiyullaahi ciise iyo nabiyullaahi yaxye dhallinyaray ahaayeen, nebiyaalay ahaayeen, way qurux badnaayeen, say rabaanay yeeli kareen, haddana ma guursan. wa sayidan wa xasuuran wa nebiya minas, ayagoo dhallinyaro ah ayay ka tageen adduunka. waa ilmo habareerna way ahaayeen. marka insaanka dadaalaa la faray, laakiin maslaxada iyo waxa ilaahay ugu talageliyey asaga. maxaa yeelay qofka ugu baqdinta badanba waa qofka awlaadda haysta, inuu ilmihiisa. waxaa arkaysa ambiyada ilmahooda rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba rabbanaa liyuqiimu asalaat aw irsuq ahlahu min athamaraat, inuu u ducaynayaan yaa ilaah awlaaddeedii wa aslix lii duriyatii, so kuma jirin innii tubtu ilayk, waa in ilaah awlaaddii hagaaji. waxaa nugu yar ducada iyo barya carruurta in ilaahay loo baryo, saqdhex ilaahay loo baryo, macnaha sadaqada loo badiyo. ilaahay waxaa yeelay waa musiibo oo ugu daran maanta haddii ilmuhu kaa qalloocdaan wey. ilaahay wuxuu yidhi subxaanah innahu alla caliimun, alla aqoon badan weye axwaasha addoommadiisa, qadiirun alla awood badan waa. waxaas la samray oo aad kuusatay ilaaha ilmo kuu bilaaba, waana la arkaba. dad 80 sano ku dhow oo carruur helay we, carruuray heleen. ma ahaanin ur ilaah libasharin ruux bini aadam oo ma ahaanin an yukallimahu basharka allahu ilaaha inuu la hadlo. يعني in badan oo yuhuudda ka mid ilaaha nala hadlayo, ilaaha wax noo waxyooda ma jiro. ilaahay bini aadan la hadli mayo ilaa an yuuxiya, ilaahay basharka inuu u waxyoodo maahana waxyan ay ilhaaman. ilhaam in wax lagu tuso. in badan oo nebiyaasha ka mida ilaahay toos ulama hadleen, malagna uma dirin sida ambiyo badan. nabiyullaahi yacni waxa weye khadira ka mida
ilhaama ilaahay kula hadlayo ilhaam. nabigana muxuu yidhi sala allahu alay wasalam ina ruux nafasa qalbi jibriil ayaa qalbigayga wax ku afuufaya oo waxyiga ilhaamka ayaa ilaahay ku ilhaaminaya wuri waa qayb waxyiga ka mid ah ilaa an yuuxiya ilaahay inuu waxyoodo maahane ilayhi basharka waxyan ay ilhaaman oo amase min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiisa inuu ilaahay kala hadlo maahane ilaahay inuu kala hadlo oo amase an yusmica ilaahay inuu maqashiyo kalaamkiisa min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiisa way ka muusa nabiyullaahi muuse oo kale wey nabiyullaahi muuse ilaahay muxuu hadalkiisa ka maqashiyey min waraa'i xijaabin wey maxaa yeele nabiyullaahi muuse codka ilaaha u maqlaya codka ilaahay ogow hadee dhagahan keliya lagu maqlamay jidhkiisa dhanaa dareemayaa le jidhkiisoo dhan cod macaan oo gelaya waa markaasa wuxuu la yaabaa layidhi macaanida hadalka ilaahay subxaanahu watacaala oo la ashqaraaray maxaa yeelay wax walba oo codad ah oo macaani leh oo dhaguhu ay jeclaadaan allihii abuuray ha waran codkiisa markaasuu iscelin waayo wuxuu yidhi rabbi arinii andur ilayk ilaahu muuqaalkaada iigu dar aan ku arko markad maxaa ka raaca hadda waxaan kusoo marnay suurata maada acraaf dheh hadda ma ahayn suuratu acraaf ayaan usoo marnay wey falamaa jaaa muusaa limiiqaatina wa kallamahu rabbuh markii rabbi uu la hadlay qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii haka yaabina awood ma lihid ale awood aad aniga igu aragta ma lihid maxaa yeelay adiga iyo buurtaas yaa weynaa layidhi buur weyn oo korkiisa taagneed buurtaa iga weynayro buurtan ilaahay wuxuu yidhi wax yar aan isu muujinaa hadday meesha awood ay igu aragta ay yeelato adiga waa yar kartaa buurtii markii ilaahay saa u soo eegaba waa dhalaashaa layidhi biyey noqotay naxdinta uu ka qaaday ayuu asagana saciqa waatii layidhi waaya falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka wa ana awwalulmu'miniin laakiin ilaahay waa la arki doonaa muminiinta awood ilaahay waxay siinaa ay jannada ku arkaan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira lianna jannada dhanba waxaa ka macaana layidhi annadaru ilaa wajhi alkariim ilaahay oo la wejigiisa la arko allah nagu daro dadka arka wey wamaa kaanuu ma ahaanin libasharin umana habboona an yukallimahu basharka allah ilaahay inuu la hadlo ilaa waxyan ilaa an yuuxiya ilayhi waxyan ow an yusmica kalaamahu ama ilaahay hadalkiisa maqashiiyo min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiisa sida ka muusa oo amase yursila ilaahay uu diro rasuulan rasuul uu diro wey ka maxamede nabiyullahi maxamed iyo nabiyullahi ibraahim rasuula u dhexeeyo oo jibriila wey oo fa yuuxiya ilaahay uu waxyoodo biidnihi ilaahay idankiisa maa yashaa'u wey oo amase yursila uu ilaahay u diro rasuulan rasuul uu diro fa yuuxiya rasuulkii uu waxyoodo wey biidnihi ilaahay idankiisa maa yashaa'u wixii uu doono wixii ilaahay uu doono ayuu rasuulkaasi malagaasi sheegaya innahu alla caliyun alla sarreeya wey oo yacni waxa weeye culuwan macnawiyan xakiimun alla xikmad badan weeyo shay walba meeshii loogu talagala dejiyey wakadaalika sidaas kama awxaynaa ila arusuli min qablik ayaan awxaynaa aan soo waxyoonnay ilayka xaggaaga nebi allow ruux ayaan kuu soo waxyoonnay waa naf ruuxdu min amrinaa arrinkeena ka mid a waa qur'aanku huwa ruux wey liannahu taxyaa bihi alarwaax yacni arwaaxda waxaa ku noolaata يعني أرواحda qalbiyada ayaa ku noolaata wey ruuxa min amrina arrinkeena diinka ka mida ma kunta ma aadan ahayn tadri inaad og tahay ma maxayba alkitaabu kitaab uu yahay walal iimaanu iimaan wuxuu yahay kitaab qur'aankan waxyigan hortiis kitaab qur'aan iyo iimaan waxba kama garanay walaakin balse jacalnaahu qur'aanka waxaan ka yeelnay nuuran iftiin nuurkoo nahdii bihi nuurka aan ku hanuuninayno man ruuxoo nashaa'u aan doonayno walaakin balse jacalnaahu waxaan ka yeelnay kitaabkaas qur'aanka nuuran nuurkoo nahdii bihi aan ku hanuuninayno man ruuxoo nashaa'u aan doonayno ruuxa min cibaadina addoomankanaga ka mida fiican wa innaka adiga nebi allow latahdii dadka waxaad ku hanuunisaa ilaa siraadin jidkoo mustaqiimin ee toosan ka beddel siraadillaahi ilaahay jidkiisa alladii allahoo lahu maa shay u sugnaaday shaygoo fi samaawaati cirar ku sugan iyo maa shaygoo fil ardi dhulka ku sugan alaa hooy baraaruge ilallaahi ilaahay xaggiisa unba tasiiru lumuuru arrimuhu ay u ahaanayaan arrimoo dhan ilaahay u ahaanayaan kan fiican kan xun yacni camalka wanaagsan camalka xun qof walba oo maaragtay khayr diinta ka run sheegay qof walba oo diinta ku dheelay arrinoo dhan ilaahu u laabanaya asagaa ilaahay ka hadlaya suuratu zukhruf haadihi tani suuratu zukhruf wey suuradda la yidhaha suuratu zukhruf magaca zukhruf waa dahab yacni walibuyuutihim abwaaban wa sururan calayha yattaki'uun wa zukhrufa wa min tacbiiri kulli bismi lbacdi wey
quraanka dhan suurada dhan waxa lagu magacaabay qaybtaas yartaa wey suuradan suuratu zukhruf yani xagga tartiibka musxafka waa suurada 43 wey suurada 43 waxay ka kooban tahay 89 aayadood ay suuradu ka kooban tahay kalimaadkeedu waa 825 kelimo 825 kelimo waxay kala kooban tahay 3703 xaraf wey 3703 xaraf suuradani waa makiyo waa suurad makiya suuradan makiyo wey waxay kamid tahay suuradaha ku soo degay nabiga kaleey salaatu wasalaam 13 sano ee maka uu joogay ay soo degtay wey suuradan waxay ka hadlaysaa min qabaa'ih wa fadaa'ih al-mushrikiin qabaa'ihda iyo aqwaasha xun iyo fadaa'ihda mushrikiinta ay ceebaynaysaa heer ay gaareen ilaahay subhanahu wa ta'ala inay u gafaan oo ay dhahaan waja'alu al-malaa'ikata alladheena hum cibaadu ar-rahmaani inaatha ilaahay malaa'iktu waa gabdhihiisii ay yiraahdeen waxa kamid ah caadaadkooda jaahiliyada ee aadka u foosho xumaa ee duna ka horeysay duna ka dambeysaba aysan soo marin oo ah wa'dul banaat waxay dhaheen dafnul banaa min al-makrumaah gabdhaha in la iska caaso wanaagay kamid tahay inaan gabar iska duugin shirkeena ay u imaanin marka waxa waaye waa yatawaara min al-qawmi min suu'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu ilaahi yiri wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat waxa kala suuradu ay ka sheekayn doontaa sifaadka ahlu naarka iyo sifaadka ahlu jannada ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يضاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وعكلا صورة كهذا ليس قصص كأنبياء قيبة كمدة سيد قصة نبي الله موسى مع فرعون ولي بخوغا سيفي عن أيوغا هذا اللي دونتا فرعون يمون نبي الله موسى وحيد حمر أيوه قرآن كسوع العليو ومركز قصة أي صورة كوغو إيمانيش sideedii hadii lagu soo celi lahaa waa ku daali lahayd laakiin xoogaa yar oo faahfaahina ayaa raacsan sidaas oo kale suuradu waxay ka hadlaysaa nabiyullaahi ciise isagana wax yar oo qisadiisa kamid ah ay suuradu inahaas ay nooga hadli doontaa bismillaah ilaahay magaciisa baan ku bilaabaa allahaasoo arrahmaan naxariista guud naxariista allahaasoo arrahiim naxariista gaarka naxariista oo caadatillahi fi kitaabi basmaladu wax walba furitaan kugu ahaato xaamiim allahu a'lamu bi muraadihi bidalik حروفتاas waxa loola jeedaa ilaahan baa garanay wal kitaabi kitaabkan ku dhaartaa horilah kitaabkaas oo al-mubiin kala cadeynay al-haqq min al-baadil xaqi baadil kala cadeynay inna anagu jacalnaahu waxaan kala yeelnay kitaabkii qur'aanan ayaan ka yeelnay kitaabkaas qur'aanan ka yeelnay mid la akhriyo qur'aanka carabiyan luqada carabiga loo nisbeeyay la'allakum waxaad milantihiin tacqiluuna inaad aqli yeelataan oo wax garataan qur'aanka ilaahay wuxuu tilmaamay maadaama dadka lagu soo dejiyay ay yihiin afsahu man nataqa luqa al-arabiyya luqada carabiga dadku hadla dadka ugu fasaaxo badnaa ilaahay wuxuu leeyahay qur'aanka dhuuxa awoodda iyo aqoonta luqadeed ee aad leedihiin ku dhuuxa aqligiina kordhay waliba qofka qur'aankan kaga xifdi badan yahay kaga aqoon badan yahay kaga dhaxgal badan yahay kaga fasiraad badan yahay dadka waa ka aqli badan yahay waa buuxaan dadka mufassiriinta ama qur'aanka si fiican u dhuuxay aqli ahaan iyo xikmad ahaan waa buuxa hatta dadka caadiga ah oo caruurta iyo ama caamada quraanka bartay dad kale ka ilmaha wad arkaysaa cunuga quraanka xaafidkay waa ka akhlaaq iyo wanaag iyo maarata deganaan badan yahay maskaxda quraanka ku jirtaa wax walba awooday u leedahay inay qabato wa innahu quraanka ilaahay wuxuu yiri fi ummil kitaabi kitaabka asalkiisi dhexdiisa oo ahaaday kitaabkaas waa jinsi kutubta oo dhan ilaahay soo dejiyay midka umka u ah ee asalka u ah ayuu ku dhex jiraa wa innahu quraanku fi ummil kitaabi kutubta oo ilaahay soo dejiyay asalkoodii dhexdiisa oo ahaaday yani asalka kutubta ilaahay soo dejiyo dhan waxa asal u ah allahul mahfuud kitaab samada laga soo dejiyay ma jiro ilaa waxa laga soo minguuriyo uu ku sharaxan yahay lawxul mahfuudka wax walba ku qoran adduunka dhacay oo dhici doona ee ilaahay ku qoray ladayna hadana agtanadu ahaaday يعني قرآن كان أكتن وهذا أكتاسي ومكانة الشرف لا مكان ما مال إلهي أكتب والكان سيداني كتاب في إيجيالو سالغا موضة لعلي ومصر رأي قرآن وصرية حكيم ومد حكمة بدنو وحو الباء سيد ماشا الله تلقى للدجية قرآن كان وأمان قرآن كإلهي أمانة أفنضرب إلهي وحيري مجيدنا عنكم حقنا قال قريشي الذكر وانا دميان كجيدنا وحاادو دبي قرآنك لوgu garaacayo markasta dhagahooda la maqashinayo safxan qorjeedin yani quraanka miyaan in ka jeedinaha ilaahay leey
يعني waxaa laga dhigay nacaybka ay nacayaan min ka joojinaa ma rabtiin miya waxaa laga dhigay fulaanun daraba safaa'ixa al-ibili can alwadan يعني waxa weeye ninku markuu geel meel ku haysa jiray geelidu waa yaqaaneen ee geeliisa uu waayo calaf iyo baad iyo biyo uu waayo geela qoortiisa qoorta u jeediyaa wadanka dhan uu kala baxaa wey marka quraanka min ka jeedinaahay leeyahay an kuntum liajli an kuntum inaad ahaateen qawman qolo qoomka musrifiina xadgudbay idinka quraanka xadgudbaa la daba joogtiin ilaahayna waaba sameeyaba ummad kale iyo Roman iyo Faris iyo Xabash iyo Afriqiya halkaasa quraanka nuurkiisa ilaahay geeyo dadkaasi way qaadan waayeen an kuntum liajli an kuntum inaad ahaateen qawman qoomka musrifiina ee xadgudbay wa kan badana arsalna aan dirno ilaahay min nabiyin nabi aan dirnay ay nabiyan fil awwalina ummadii hore dhexdooda aan ku dirn imisa nabi maxamed ka horeysay ummadii hore nabi loo diray wama yaatihim uma yimaado ummadahaas min nabiyin ay nabiyin uma yimaado illa haduu yimaado kaanu waxay ahaan direen yastahziyuna bihi nabiga inay ku jaasjaasaan nabi la soo dhaweey ma jiro ilaahay leeyahay jaasjaas fa ahlakna marka waxaan halaagno ilaahay ashadda kuwa daran minhum kuwan gaalada quraysha ka daran badsan min badsin xagga qabashadii awood taacad intay la akaaya hal mar haduu kun qof dharbaaxo kulli abaaba'ayeen awood ilaahay uu siiyey wamada waxaa tagoor ilaahay mathalul awwalina umarihii hore tusaalahoodii waa tagay wixii dhex maray ayagii rusushooda iyo cadaabkoodii iyo meeshay ku dambeeyeen wax badan uu soo tago quraanku ka qisooday wala in sa'altahum haddaad weydiisid nabi allah gaalada man keeba khalaqa as-samaawaati cirarka abuuray wal arda dhulkana yaa abuuray la yaqulunna yiraahan khalaqahunna samaawaadka ardada waxa abuuray al-aziizu allaha aziiska sharafka badnaa ee taladiisu reynay al-aliimu aqoonta badnaa yani la lil iimaani ku dhihi maayaane bal bimughalabati al-hujja wax kale ku jawaabaan xujahiisa haynin way haday saas tahay marka allahaas maxaad u beeninaysiin oo aad ugu tilmaamaysiin hadalla aan fiicnayn waladu dhalay iyo reer uu leeyahay iyo waxa maxaa u sheegaysiin huwa ilaahay alladhi waay jacala lakum idin yeelay oo idin kaga yeelay al-arda dhulka mahdan gogol ama mihaadan dhulku waa gogol wax alla waxa bini aadam haysto dhan dhulkay kor saaran yihiin hadana allihi dhulka laha ma caabudaayo way wajacala ilaahay wuxuu idin yeelay lakum idinka fiiha ardada dhexdeeda subulan wadooyin aad martiin ardadu hadaysan hatta waxa weeye ama dadku ha qaadeen ama duuniyadu ha qaado ama gaadiidku ha qaado dhulka waxa lagu joogaa wadooyinkaas waxa bini aadamku bixiyo waa iska yar yihiin ilaahay wada bixiyo wadooyinku soo walidaa wax arkaysaa meelaha bahgooyinka marka aratid wadooyin toos ah arkaysaa yaa falay oo geeduhu dhinacyada uga yaaliin la'allakum waxaad mulantihiin tahtaduuna inaad ku hanuuntaan safaradiina iyo meelaha u socotiin iyo noloshiina haddaan wada jirin maqsad ba lama yeesheen way walidii allihii way nazzala soo dejiyay min as-samaa'i cirka xaqiisa waa daruurte ma an biyo rooba biqadarin ku soo dejiyay qorshe roobku qadar uu leeyahay inta ku ilaahay ugu talagalay waqtigu imanayo fa ansharna waa nooleynay bihi bisababihi maa'iga sababkiisa baldatan magaalo baldado maytan dhimatay abaar la dhimatay kadaalika sida ilaahay baladka dhinta u soo nooleeyay oo balad dooga u noqday ayaa tukhrajuna idinkana la idin soo saaraa ma dhiba soo celinta aad diidaysiin iyo qiyaamo sidana loo keena saasa ilaahay idin soo nooleynaya walidii allihii way khalaqa abuuray al-azwaaja noocyaalka kullaha dhamaantood wax alla waxa anwaaca oo ilaahay nooca lamaanaha ah lab iyo dhadiga ilaahay asaa abuuray xoolihii dadkii duuniyadii kulli hatta geedihii waxay leeyihiin lab iyo dhadigay leen ama asnaamtaaba laga wada azwaajta wajacala ilaahay wuxuu yeelay lakum adinka min al-fulki doomaha xagooda iyo wala nacaam nicmooleyda geela aloola jeedaahay ma shaygo tarkabuuna aad kortaan doomaha iyo gaadiidka hadda waxa lagu soo daray gaadiidka jawiga diyaarada kan maaratay oo yani dhulka oo gaadiidka baabuurta ilaahay nicmadiisa oo yakhluqu ma la ta'lamuuna soo galay wali geeli sidii loo rartaa litastawu ayaa ilaahay maaratay kugu yeelay inaad sinaataan ala dhuhurihi yani maagaas ma tarkabuunka oo markubka dhabaradiisa inaad ku sinaataan ama geel xoolaha ahaado ama gaadiid kale ha ahaado dhabarka baa laga koraa litastawu inaad ku sinaataan ayaa ilaahay in kugu yeelay litastawu inaad ku sinaataan ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala idin kugu yeelay taasoo ilaahay in kugu yeelay ala dhuhurihi maagaas oo markubka dhabaradiisa markaa ka bacdi tadkuru aad xasuusataan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa
idaa waqtigaad xasuusataan istawaytum aad ku sinaataan calayhi maaga markuubka markaad ku ekaataan ee ama hawada kula galo ama dhulka kugula ordo ama saxaraha geeli kaala gudbo oo taquulu aad tidhaahdaan idinkoo nicmada ilaahay ka mahad celinaya subxaana waxaa nasahan alladii allihii sakhara layliyey lanaa annaga haadaa markuubkan allihii noo leeliyey wey haddii aan ilaahay sakhiri lahayn miya gaadiidkan dadka qaadi lahaaye awrtan miya xoog ku raaci kartaa adig ugu raaci kartid wey wamaa kunna allihii noo leeliyey walxaal maa kunna aanaan ahayn muqriniina kuwa awooda lahu markuubkaas wey markuubkaas annagu awooddeenna iyo maaragtay hayin nooguma ahee ilaaha noo leeyey wa innaa annaguna lamunqalibuuna kuwa gadoomayaan naha ilaa rabbina rabbigan intii ka ah iyo qiyaamo iyo jazihiisa aan u gadoomaynaa wey waxaa loo keenay sida gaadiidkaasi meeshaadii meel kale uu kuu geynayo oo ehelkaagii meelaan ahayn xaggaasaa aad arkaysaa adoo wax lagu saaro aysan jirin wax lagugu soo qaada adoon jirin qiyaamada adoo lagu keenaad arkaysaa wajacaluu fadaa'ixdooda meeshaan laga geli wajacaluu gaaladii waxay yeeleen lahu alla waxay u yeeleen min cibaadihi addoomankiisa waxay uga yeeleen juz'an qayb addoommadiisa ka mida ayay ilaahay uga yeeleen wey waa malaa'igtii waana loo sheegi innal insaanka bini'aadamku lakafuurun waa mid gaalnimo badan mubiinun ee gaalnimadiisu haddana ay caddaha kafuurka mubiinun gaalnimadiisa caddaystay soomaalida dhihi jireen gaal dabacad waa cad yahay bal iska dhaafe amase ittakhada ilaahay ma wuxuu samaystay mimaa kii xaggiisa yakhluqu uu abuuro miyuu banaatin gabdha ka samaystay waa istifhaam inkaari makhluuqa ilaahay abuurayo miyuu gabdha ka samaystay wa asfaakum idinkana ma wuxuu idiin dooray bilbaniina wiilal ilaahay labadaba asaa abuura marka soo ilaahay gabdhihii aad ka cararaysiin ood nacibaydeen si ilaahay u abuurta idinkana wiilal idiin siiyey tilka idan qismatun diisa waa ka ilaahay yidhi haddaa xataa wiilasha ilaahay ma adnaan xijin waidaa waqtigii bushira loo bishaareeyo axaduhum kuwa gaalada midkood bima haddii loogu bishaareeyo gabar maagoo daraba uu yeelay liraxmaani allaha naxariista badan maalan tusaale uga yeelay ilaahay gabruu dhaluu taagan yahay asaga haddii loogu bishaareeyo layidhaha markuu guriga yimaado caawa gabara kuu dhalatay dalla wejhu wejigiisu wuxuu ahaadaa muswaddan mid madow ayuu ahaadaa walxaal uu asaguna kadiimun mid cabursan uu yahaba waa ciiqsan yaha bis wuxuu ilaahay u yeelo tusaale gabar uga yeela shabiih asaga kuma faraxsanow aday u necbaayeen gabdhaha ilaahay wuxuu yidhi awayajcalu insaankaas oo yacni axadka gaalka lilraxmaani allaha raxmaanka miyuu u yeelayaa min alwildaani xagga carruurta intaasaa usoo qadare awayajcalu lilraxmaani min alwildaan man gabar miyuu u yeelayaa gabadhoo yunasha uu la koriyo la barbaariyo filxilyati quruxda lagu barbaariyo wax raggu aysan qaadan oo dumarka lagu qurxiyaa jira oon loo ogoleen ragga muslimiinto waa dahabka ha yaraato ha weynaato waxa quruxdan bay gabadhu jecesha meel kasta in dahab iyo dhar iyo wax qurqurxoon looga tixo ayay jeceshaha wey awaman awayajcalum wuxuu u yeelayaa man qof gabadhoo yunasha uu la koriyo filxilyati quruxda lagu koriyo walxaal huwa manku aska gabadhii hayru mubiinin mid caddayn kara aan ahayn fil khisaami dooda ma caddayn karo oo waxaa la yidhi dumarku hadday maagaan ragga la murmo oo la dooda wax ayada lidku unbay ka hadashaa la yidhi caqligooda wuxuu yahay fasaaxada raggaa badan xagga maskaxda iyo maaragta caqliga iyo xujooyinka raggaa badan welidaa waxaa la yidhi dumarku say u hadlaayaan iska aamusin yani marka waa jaryan cala alghaalib waa sida badan oo cunsurka dumarnimadu sida ay ku tahay mooyaane gabdha waxaa jira hal gabaroo kun ninka caqli iyo fasaaxo badanaa jirta wey laakiin waa jaryan cala alghaalib wajacaluu waxay yeeleen oo gaaladii caqiideeyeen almalaa'ikata malaa'igtii waxay u aamineen oo u caqiideeyeen alladiina malaa'igta oo hum ayagu cibaaduraxmaani allaha naxariista badan addoommadiisa ahaa ayay inaasan gabdho ka yeeleen oo ilaahay ugu caqiideeyeen malaa'igtii cibaaduraxmaan idabdaradooda ayay ilaahay dhaheen waa gabdhihiisii ashahiduu ma waxay goobjoog ahaayeen oo ay ka markhaati kaceen khalqahum malaa'igta abuuristooda miyay markhaatiyo goobjoog ka ahaayeen markii la uumaayo gabdha in laga dhiga miyay ogyihiin malag maba la arkee satuktabu ilaahay xore waa la qori doonaa shahaadatuhum markhaati kacoodaas yacni waa yahay shahiduhum waxay goobjoog ahaayeen khalqahum malaa'igta abuuristooda satuktabu waa la qori doonaa shahaadatuhum markhaati kacoodaas ay gabdhaha ilaahay malaa'igta ilaahay gabdha ka dhigeen wayus'aluuna waana la weydiin doonaa waqaaluu waxay yidhaaheen low shaaa araxmaanu markii la yidhi asnaamta maxaa u caabudayseen low shaaa araxmaanu allah naxariista badan hadduu dooni lahaa maa cabadnaahum asnaamtan ma caabudinanay dhaheen waa kelimatu xaqin uriida biha albaadil kelimad xaqa waa ilaaha nala doona waa sax laakiin baadila laga wadaa ama malaa'igtu u celi
وقالوا وحيرهن لو شاء الرحمن ما عبدناهم أصنامت أما النبي عيسى هويديس أما ملائكة إله فرما اللهم مصغنانين لذلك قولكاس من علم أي علم وح أقال أقون مله واسكدها يان ماهنه لو شاء الرحمن أقون كمدهن إنهم يجوا معهانين إلا يخرصون كوح معناها جمدة أو خرسية وحال كوا وحسكا جمدة أو وحسكا بينية أو ملايو وي إنهم يجوا معها إلا يخرصون كو بين شيغا أو wax gamada mooyaane wax kala ma ama mase ilaahay xiraateenahum waxaan siinay kitaaban miyaan siinay min qablihi quraankan ka hor miyaan kitaab siinay oo u sheegaya in waxaan malaa'iktu gabdha ilaahayn ilaahay wax dhalay asnaamta la caabudo oo fahum ayagu mustamsikuuna waa kuwa ku dhagan oo qabsaday bihi kitaabkaas kitaab ma haystaane waxay haystaan at-taqlid al-a'ma iska saarsi in dalaana bal iska dhaafa qaalu waxay yiraahdeen kuwa gaalada in anagu wajadna waan helnay aabaana aabayaashanada calaa ummatin diin korkeedaan ka helnay dhaqankan iyo asnaamtan ayagoo caabuday wa inna anaguna muhtaduuna kuwa ku hanuunsanaanahay calaa aasaarihim aabayaasha raadadkooda wey waska taqliid aabaha hadduu god ku jira ma la gelaysaa wakadaalika sidaasoo kale ilaahay wuxuu yidhi ma arsalnaa ma aanaan dirin min qablika hortaa fii qaryatin magaalo dhexdeeda min nadiirin ay nadiiran rasuul diga rasuul sida adiga nafta lagugu keenay oo kuwii qurayshta ugu dhaqaalo badnaa ay ku dhibayaan qaryo uma aanaan dirin hortaa nadiir rasuul u diga ilaa haddaan dirno qaale waxay yidhaaheen mutrafuhaa qaryadaas kuwoodii loo raaxeeyey barwaaqada iyo nicmada iyo madaxda ahaa ayaa waxay nebigoodii ku yidhaahdeen inna annagu wajadnaa waxaan helnay aabba'ana aabbayaashanadii calaa ummatin diin iyo dhaqan aan ka helnay wey wa inna annaguna muqtaduuna kuwu ku dayanayaan nahay calaa aahaarihim nafsa hadalka ay ku leeyihiin raadadkoodan ku dayanayna ayaa nebi kasta lagu yidhi wey raalli ahaada haddee hal maqro ayaan idin dhex qaadsiinay wey hadda wixii ka dambeeya sidana u laaban doonaa 3 habeen ka bacdi tafsiirku wuxuu noogu eegayaa suuratu xaqaaf marka habeenadan hooga daaha laga dulqaato allahu subhanahu wa ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam